waxaan sameynay 0.9 oo percentage oo faa'iido ah. 0.9 marka waxaa ku dhufsanaysaa intaas lacagtaas aa heshay hadeer oo faa'iidada ah. hadda waxaan sii maraynaa faa'iidadeena kor bay u socotaa. la socda kala soco resultiga faa'iidada la helayo. dhammaan waxaan ugu talagalay ardayda inay ayadoo faa'iidadii ee profitkii halkaa lagu soo qoray result profit and loss intii aa heshid ama profit intaa heshid ama loss intaa heshid. waxaa kala socon kartaana waa Somali Star Online Training Academy-da laga barto IQ option-ka. lacagtan ku jirana waa euro iyo USD. ila soco markaa step by step iyadoo cashirkana waxaa inoo soo socda cashiradii iyadoo aan assets-kiina gadi doono halkan oil-kii saliidii iyo iyadoo cashiro fara badan ay la sugayaan. halkaa kala soco marka profitka dhaqdhaqaaq walba aan sameeyo cashirkiisii ayaa helaysaan oo tilaabo walba daqiiqad walba waxaa igala soconaysaan internetka iyadoo cashiro fara badan aan ka faa'iideysan karno. waana engineer maxamed maxamuud bare iyo cashiradii loogu talagalay ardayda forex-ka inay ka faa'iideystaan loogu talagalay. kuwa gaar ahaan ardayda bilowga ah ayaana loogu talagalay inay faa'iidada live loo taaban kara inay helaan ama ay arkaan. waana cashiradii mihigaanka ahaa ee Somali Star Online Training aan kala wada soconay. horey waxaan usoo barnay cashiro luqadda Englishka iyo cashiro kale oo IT-ga ah. dhinac waxaa ka socda cashiradii forex-ka waana ugu talagalnay qayb forex-ka inuu iskuulkan lahaado. mar hore ayaa loo jaangooyay. waxaan bilaabi doonaa sanadkan bisha ku xigtana waxaan qaban doonaa shirarkii waan qaban doonaa. hadeer waxaa socdo ardaydii la diiwaan gelinayay waana iska diiwaan gelin kartaa Somali Star Online Training iyadoo cashiro fara badan ay socdaan. hadeer waa waqti hore waxaan joogaa xaafadda saa darteed waxaan ugu talagalay ardayda inay live wala socdaan meel walba oo la sii maray. horaan uu sheegay candleska inaan soo akhrisano. candleka cashirada oo bilowga ardayda lagu tababari doono ayuu qayb ka yahay. candleka cashiradiisii ayaa tababarka ka bilaabanaya. kadibna sida suuqa lagu sameeyo newska loo soo warbixinta suuqa loo soo fundamental analysis loo sameeyo kadibna loo sameeyo technical analysis kadib faa'iidadii inay kordho. profitkan ku galayno waa 0.9. ila soco waan kuu sheegay marka hore oo profitka anaga halka aan ku gali doono aan heli doono 0.9. waan bilaabay inay shaqeyso oo ku dhuftay waan la qabsanay suuq kor baan la sii raacnay haddana hoos baan la soo raacayaa 5 minutes walba. ila soco dhaqdhaqaaqa aan gacanta ku hayo. ila soco markaan ku dhufto suuqa sida looga faa'iideysto.
mar walba suuqa galitaankiisa new option soo siinaya 2 minute walba 2 minute baan ku galayaa ila soco halkan waa 2 minute